السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب شرفت لي رمضان كريم. مركز تدك شوكتان دنيا دعالة سودا وهذا وبرنامجكي عرفتون إيو ولالكا قد بناها وقرقار. مرة بعد مرة سدحات رمضان كريم أصحاب شرفت لي سودا وهذا المدنيو مروبة ككوبا. والدين سودا وين إياه وعلى كو سودا وين إياه barnaamijka calaftoon u gargaar walaalkaaga dhibanaha gacan nabinin doono sheer hala saaro hala sheer gareeyo hala soo dhawaado waa barnaamijkeennii waa barnaamijkaagii waa barnaamijkeygii makhaayadda shida barnaamijka sheer gareeya wacalaykum asalaam waraxma aad baanu salaanta idinka qaadnay barnaamijka sheer gareeya dhammaantii soo dhawaada waa barnaamijkeennii taxanihii u gargaar walaalkaaga dhibanaha waa calaftoon waa tabarucaad كفائدة يوكس جانسكا شرقرية برنامج كسورة وهذا لبدي واتساب وايدين فريهين واتساب كرقة يكيدو مركا هذا بها موغان برنامج كعلفتون وقرقر ولالكا قدبانها شيركو قبو حنان قلانشو وعليكم السلام ورحمة ولا شيء نقو قالية وانكو سلاني سلامتنا وانكا قادني برنامج كشرقرية حنان soo dhawaada dunida dacaladeeda meel kastoo joogtaan barnaamijka sheergareeya aad buu mahadsan yahay qofka sheergareeya mahadnaq iyo duco aan soo koobi karin baan u diraynaa aan hawada u marinaynaa iyo caafimaad qab nabad qab dhammaantii soo dhawaada barnaamijka sheergareeya aad baad u mahadsantihiin asxaabta sharafta leh akhyaarta nagu qaaligaa dunida dacaladeeda meel kastoo joogtaan labadii whatsapp waa idiin furan yihiin waxaad naga soo wici kartaan whatsappkii ragga kii dumarka buuggii naxariistu caawa waa buuxaa buuggii naxariistu caawa waa buuxaa caawiyaa labaadka u helay kenya yabanta sacuudiga bakistan bangladesh kaba sii daran ilaa iyo caawi switzerland habla ku bastooda oo gurdoon oo calafdoona haddaba jaanisku iyuu ku dhaafin firdowsa wacalaykum asalaam waraxma salaanta waan kaa qaadnay walaashay nagu qaaliya barnaamijka sheergalay firdows soo dhawaada sheer ku qabta khayr allah idin siiyo asxaabtana salaamaysa aad baan anaguna u salaamayna alaajigayga sheer ku qabo maasha allah walaalayaal whatsappku waa idiin furan yahay waxaad naga soo wacaysaan oo whatsappki ragga iyo kii dumarka wacalaykum asalaam waraxma intana salaamaysa waanu salaanay salaan aan la soo koobi karin baanu anaguna hawada idiin soo marinaynaa ramadaan kariim ciddii aan soo manayn barnaamijka dib hawa yara joogaan ummaddii soomanayd aan soonku ka tegin baa lagu soo dhaweynayaa barnaamijka ciddii afku u xiran yahayna hadda kasoo qayb gal markaad afurtid waa barnaamijku waa calaftoon waa barnaamijkaagii waa barnaamijkaygi u gargaar walaalkaaga dhibanaha ee beerka u jiifa haddaba ha moogaanin whatsappkii ragga iyo kii dumarka buugga naxariistu waa buuxaa aasiya africa america australia dad badan baa australia u bukay whatsappkaa soo wacaan rag badan australia bay rabeen kenya sidoo kale waxay rabaan australia inay xeebeyga ku dalxiisaan caawaa lagu hayaa kasoo qayb gal wacalaykum asalaam waraxma halkan kaasoo qaban mayno mas-uul whatsappka soo wac asxaabta sharafta leh barnaamijka sheergareeya cabashada hadhow qaar badan baan garanayaa oo cabasho soo gudbin doono qalanjo taako boqoradii jacaylka boqoradii maalka barnaamijka sheergareeya qalanjo taako kusoo dhawow barnaamijkaagii barnaamijkeenii u gargaar walaalkaaga dhibanaha
هلو السلام عليكم. khadkaa ka daciifa markaad barnaamijka soo wacaysan waxaan idka codsanaynaa khad fuul ah oon ku gabin oon ku ciilin waa inaad la tagtaa. sheergareeya barnaamijka, cabashada ka daaya barnaamijka. ummad baanu isa siinaynaa isku daacada, macnaha hadhow toolo korkaan labada lambar u kala qorno aynu kala siino cabashaana soo gaadhaysa. dhexdiina khilaafka dhexdiina imaad labada qof ee aan isgaranayn whatsapp bada markaan u kala qorno labada lambar haddii wax khilaaf idin kala dhex imaado jacayl xaasid ma waayo bay soomaalidu tiraa. haddii aad macnihii yar dareentaan wax khilaafa dhexdiina ku xaliya. macnaha waxa fiican inaadaan anaga noo soo sheegin, waayo anagu dhakhaatiir ma nihin. soomaaliduna waxa ku mahmaada nin iyo naagti cunla maaha nabadna maaha. markaan anagu labadiina lambar isa siino qalanka taako rabadaan kariim waanu ku salaameynaa boqoradii maalka. barnaamijka sheergareeya barnaamijka. ragga sharafta leh ee xagga dambe kasoo galay walaal whatsappka ragga soo waca. inamaa ku jira imika soo wacayo whatsappka dumarka adoo naga raaliya xumaana u arag kuna xumeyneyn baanu ku sheegaynaa inuu whatsappka raggu adiga kuu furan yahay. whatsappka dumarka ha loo daayo, halagana soo qeyb galo. wacalaykum assalaam waraxma. aad baanu idinka qaadnay salaanta muna, aad baan barnaamijka kugu soo dhaweynaya. salaantana waan kaa qaaday. barnaamijka sii sheergaree ka soo qeyb gal. halo asalaamu calaykum. halo halo rabadaan kariim. rabadaan kariim mas-uul. walaal whatsappka dumarkaad ku jirtaa adagoo raalliya. walaal laba lambar baa isku dul qoran adigoo naga raalliya oon xumaan noo arkayn. ku noqo waa laba lambar baa meesha ku qoran. aad baanu kuu salaameynaa mas-uul. daacad ma tahay? siddeetan iyo labadu waa ka ragga, waa gentleman. waxaa looga baahan yahay nin joof iyo johorad leh. soo qabo. lambarka 2 u dambeyso waa ka ragga. 82 af soomaaliga ma taqaanaan. lambarka whatsappka dumarka ha loo daayo. way cabanayaan, hadhow bay nala soo xidhiidhaan. hadhow bayna idhaahdaan anagu waanu iska noocyo badan nahay, dumar baanu nahay, whatsappka iyagii waa mashquul. hadhow qofkiina soo wici lahaa noo caban lahaa cabashadaada halkan ka sheego si aanu kugu helno gabadhaadii mustaqbalka bacdal soonna aad isla dadab iyo aqalba gashaan. barnaamijka sii sheergareeya. waa barnaamijku waa barnaamijkeenii, waa barnaamijkaagii, waa barnaamijkii calaftoon. habeen walba waan idinku celceliya. waa u gargaar walaalkaaga dhibanahay beerka u jiifa. haddii aad beerka u jiiftid macnihii aad rabtid qof mustaqbal ah ood mustaqbal doona waanu kuu fudaydinaynaa. waxaanu kugu fudaydinaynaa si aad u heshid xaaskaagii ooridaadii oo daacada. buugga naxariista sacuudigii wuu buuxaa. kenya iyaduna waa kaba sii daran. number 1 bay ku jirtaa. tuugu waa sacuudiga, bakistan, hindiya. walaalayaal isku tanaasula. australia iyo yurub iyo yaa lagu soo roorinuun brazil. macnaha rag iyo dumar haddii aad tihiin oo daacada oo calaftoona. yurub iyo australia daaraha dhaadheer inagu melihin, adiguna melihid.
inan walaashaaya oo beerka u jiifta oo ku dhibaataysan bangaladesh iyo bakistan jaamacad ka dhigata haddaad bakistan joogtid baan kugu xidhaynaa walaashayada dhibanaha ee beerka u jiifta ee basteeda ee tabcaanka ee sacuudi carabiya casiirka ku cabta waxaanu u haynaa qof aan ka dheerayn sacuudi carabiya sha'ha kula caba barnaamijka sheergareeya dadku waa iska wada qalbi dhoof daara cadcad iyo waxbaa jiidanaya waxay wada rabaan australia soomaaliya inagu malihin ka baxa australia laydinku dhufay haddaad calafdoon tahay nagu xujeynin gabadh australia joogta hablaha iyaga sharafta lena waxaan u sheegaynaa jeebka ninka australia jooga ha ku xisaabtamin ninku lacagta isagaa iskale isagaa shaqaystay ma lacag doon baa tahay ma jacayl doon ma mustaqbal doon caawa waxba iskula hari mayno whatsappku waa idiin furan yahay gabadh baa kaa soo wacaysa kenya waxay ku odhanaysaa walaal aniga brazil ii dir ma dirno anagu diyaarada ma wadano waan idiin sheega habeen walba hello asalaamu calaykum asalaamu calaykum asalaamu calaykum waan ku maqlaa walaal rabadaan kariim rabadaan kariim waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka calaftoon u gargaar walaalkaaga dhibanaha ma la socotay barnaamijka magacaaga iyo waddankaad beerka u jiiftid magacayga waxaa la dhahaa samara ya ehlul samara samara waxaa ka saale samara ciyaarta ka bax halkeed beerka u jiifta halkeed bestaa ku tahay ya burcaan jooga burco burcaad beerka u jiiftaa burcaan beerka u jiifta imise jir baa tahay samara samara waa 20 jir isku tumatay burco beerka u jiifta samara nin halkee jooga baad rabtaa ya nin waddankee jooga nin waddankee jooga macnihii nin waddankee joogaad rabtaa ya waxaan rabaa inaan joogo maraykanka waa qalbi dhoofkan idiin sheegaya hadda walaashayo burcaad bastaa ku tahay ood beerka u jiifta 20 jir isku tumatay baa tahay ma kugu xidhnaa nin burco daanta kale kaga nool ood mustaqbal ood wax la wadaagtid nin burco daanteeda kale ku nool ma kugu xidhnaa oo isna bastiya oo beerka u jiifa oo muxiyadiin mukhtaar aw xirisow la yidhaa xirisow oo 21 jira walaal si fiican ma noo maqashaa hello si fiican ma noo maqashaa nin burco jooga nin burco beerka u jiifa oo da-diisu 21 jir tahay ma kugu xidhnaa oo calafdoona oo mustaqbal doona adigoon america iyo aasiya toona tegin mustaqbalkaaga burco burcuu kula joogaa samara aad bay u mahadsan tahay kasoo qaybgalkay kasoo qayb gashay samara waxay rabtaa in la transfero in la tarxiilo waa tarxiil caadiya waa caadi iyo tarxiil waa caadi hal isku tarxiilo hello asalaamu calaykum samara aad bay u mahadsan tahay
kasoo qaybgalkay kasoo qayb gashay barnaamijka samaara america bay rabtaa waa dooqeyga ka hor istaagi mayno haddii aanu haynana waanu ku xidhaynaa waa 20 jir waktigaa hadda u cusub laakiin samaaro waxaan kula talinayaa dal dheer kuma dhaxan tiro way soomaalidu ku mahmaada samaara calafkaagii hadday ugu badan tahay addis ababuu jooga anaa kuu sheegaya anugu halkan iskamaan soo fadhiisan waxbaan ogahay soomaaliya 20 jiradeenana inaynu dirno oynu tarxiillo waa laga fiican yahay barnaamijkaa ku ciyaarina barnaamijku waa calaftoon sheer gareeya u gargaar walaalkaaga dhibanaha waa tabarucaad macnaha tabarucaad idinku qalad baad ka fahanteen kelmadda tabarucaad waxaad u taqaanaan lacag la uruuriyo ayuuta la galo maaha waa adigoo u gargaaraya walaalkaa oo dhibanaha oo beerka u jiifa oo mustaqbal doona raggu way garan laayiin whatsappka waxay soo wacayaan dumarka 2 whatsapp baa meesha ku qoran han mar labaad idinku celiyo midna waa ragga midna waa dumarka walaal qoraalka si fiican u akhriya kadibna soo waca barnaamijkana sii sheer gareeya barnaamijka sii sheer gareeya هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ولا المعن. إن ولا المعن آد بنا ونقول صلانتك كاجا قادني ملايقها كصوب وقته. إن عود كاجا كر وقت رمضان كريم. رمضان مبارك رمضان مبارك ولا. إن ولا الوان كسودة وينينا إن برنامج كمل سعودي. والبرنامج كوال السعودي ومركي لبعض سوخ خاضنايو إن وحوي صابرين وجوكتا دالك ماليزيا إن صابرين ومركي لبعض بوق النحريست كوريو هاس بتكون حسنت هاي إن واحد بير كوتشي في دالك ماليزيا ويننتي وحبرني سنة حسب السنة دا وين دريمية ويننتي أرضيتها يتباتها يا فرهنقولي دبرنيس المستر بعد ديارنا waxaan joogaa dalka Malaysia hadda koor baan kusoo qaraacay waxa igu tiray inaan baan kugu soo xidhay ilaa ibkana ma hayade waa runta sabriin Malaysia beerka u jiifta dhibaatadu xaggayga maaha waxa dalbatay 3 wadan Faransiiska iyo wadanka Soomaha Australia iyo Switzerland يعني يوروب حتى وكوري دفعها يوروب وردن هدي معناها إن أنت نترك أهين waxaan talyaaniga ka hayn haddaad ku dartay waxaan kuu raadinayay nin fiican mustaqbal doona daacada lilaahiya aan kugu ciyaarin waayo in 20 jir isku tumatay oo Malaysia beerka u jiifta oo mustaqbal doona xumaan lama ogoli in lagu xumeeyana ma rabo waa bir rabadaan macnahaygu wuxuu ahaa ama targetkaygu ahaa inaan kugu soo xiro min daacada oo Switzerland ama Yurubta kale ama Jarmalka Faransiiska ilaa Poland dee nin daacada adigu talyaanigu bad ka bootay soo ma عمي تلياني إلى الشرع استوبعناي إن شاء الله وحوينا علفك وهالكيسين من ما لها لقى مويني لكن خوف وناكسن وديني أخلاق له ومعنا هاد جماعتي دما نسنس فهنو فنسكر بلها لكن ولا مويني وحيا وسكب وحاني بنا محل داي خوف وناكسن بيلا لقى بريا وركا وطاعت والله وطاعت سبرينا وطاعت sabriina daacaddu way yar tahay ragga Soomaaliyeed ee sharafta iyo qiimaha leh WhatsApp-ku waa idin furan yahay dad wax dhiig la tihiin WhatsApp-ku waa idin furan yahay 3 wadan baa la idinka rabaa oo Talyaani ku jirin reer Talyaani caawa lug baa lagu hayaa nasiibkoogay qaadayaan uma aanan diidin barnaamijkeena ka soo qayb galaan balse qofka saacan aynu hayno oo sabriina waxay rabtaa inay wax la wadaagto Talyaaniga markii laga reebo qaaradda Yurub oo dhan WhatsApp ku waa idin furan yahay soo waca
waa daacadi ma hungowdo mar walba waan idinku celcelinayaa war kaalaya oo naqaysta hablaha daacadda habeen walbaan waan idiin sheegaya maxaan idin leeyahay war kaalayo sabrina ma ku jirtaa khadka hawlo si fiican waan ku jiraa barnaamijka si fiican baan ugu jiraa waxaan maleynaynaa ima khashiid adiga xataa si fiican baan kuu maqlaa walaalo aad baad u mahadsan tahay kasoo qaybgalkaad mar labaad kasoo qayb gashay barnaamijka calafdoon ee u gargaar walaalkaaga dhibanaha ah ee beerka u jiifa buugga naxariista kor iyo hoos mar labaad waan kugu xariiqayaa insha allah bismillaahi kariim waxaan rajaynayaa in ayna caawa nala dhaafin oonu caawa helo mid daacada mustaqbal doona mar labaad ma noogu celin kartaa qofkaad u baahan tahay da-diisa walaal qofka u baahanahay waa inuusan 30 gaarinin 29 28 wixii halka ka madabaan 22 jiro ma fahantee adigu 22 jir baad tiri haa waa runta 22 jir isku tumatay isku tumatay oh my god macnihii isku tumatay macnihii gashaanti un ka soo qaad adigu isku tumatay maxaa laga wadaa isku tumatay haddaad maqashidee besta macnihii tabcaan 22 jir aan weli guursan waa iska al tabcaaniya waxa weeye beerkaan u jiifacad sabrina qof aan 30 gaadhin laakiin 25 26 isku tuntay 28 jir isgaraacay waad rabtaa 28 سائد لكن وش كعادي أظن صدق قاعدين inuuna 30 gaadhin muhiimadaadu waa inuuna 30 gaadhin lambarkan mar labaad walaalkaa qorayaa si aan dadkii hore aad iiga soo cunaatid waayo adigu qofkii markii labaad eed kasoo qeyb gashid barnaamijkaa tahay sidaa ugu jir sabrina lambarka waan kaa reebay waxaan rajaynayaa inaan qof daacada soo siiyo lambarkaaga marka talyaani laga reebo qaaradda yurub oo dhan insha alla markuu qofkaas kula soo xidhiidho uu ku idhaahdo waxaan kasoo helay lambarkaaga barnaamijkii calafdoon ee beerka loo jiifay inaad soo dhaweysid qalbi furan gacmo furan kusoo dhaweysid baan sabriina rajaynaya أي والله معنا أدود ما حسنت هاي برنامج كسر أولاد هنا أبى كل سلام يا هذه يدك كل معنا الله برسناي غير يعرف ما اللي aad baan anaguna kugu mahad celina kasoo qayb galkaad kasoo qayb gashay calaykum asalaam waraxma ragga qiimaha iyo qadarinta mudan hadhow marka barnaamijka laga baxo soo calaacalaya yacnihii hadhow toole ka odhanaya waxaan u baahannahay qof mustaqbal doona war whatsappku hadduu kuu furan yahay haddaad sabriino heli kartaa haddaad aamina canab saynab saasaa laydinku baahan yaho malaysia looga soo wacaya waa 22 jir aan adduunka waxba arag 22 jir aan adduunka waxba arag hallo salaamu calaykum hallo hallo barnaamijka waan kugu soo dhaweynayaa balse waxaad ku jirtaa lambarkii dumarka waxba gabadh ma waa lagu siinaya haddaad rabtida whatsappka soo wacd ragga tabcaan ma tahay beerka ma u jiiftaa aad baan kuu salaamaya adigu daacad ma tiid aad baan kuu salaamaya whatsappka ragga soo wac mas-uul may maqashaa halkeed beerka u jiiftaa aad baan kuu salaamaya
inantu iyana kuu caddaanun inantaasaan rabaa inan anigu hadda gacan kuma hayo soomaaliyeed macnaha anigu habla hadda idinma siinayo kulaha inantaasaan haya anuma inantu maana ila joogta mise aniga dhalay macnihii anigu inanta waxaan kuu fudaydinaya inaan lambarkeyga ku siiyo aad wax la wadaagtid indhaha la iskama soo rido whatsappka raggu waa idiin furan yahay whatsappka dumarka u daaya inantay sii kulaha halo salaamu calaykum walaalo whatsappkii ragga dumarkaad ku jirtaa hay waan ku jiraa waan garanayaa kii raggii baa xirtay in adeer maxaa laga soo wacaa ma xidhno mas-uul waa idiin furan yahay wuu xiran yahay in adeer ku laabo arrintaas ku laabo ma fahamto wuu xiran yahay raggoo dhan kaama soo wici karaan ku soo celi bal imiga adigu sidaa ka yara baxo ku soo celi mas-uul waa kuu furan yahay way هلو مصطفى لمبركو وحرية وروتي ان ولا ما حبنا مسؤول لمبركو لمبركو اوفلاين ولمبرك قدك مكو جرت قدك كو حريري والله كوما جرت قدك ان وتا لوgu jiro مسؤول وتا لوgu jiro whatsappka waa idin shaqeynaya هيا هذا ku soo celina hada soo weysana ee markiisa u soo gashay la hada waa soo wacayo ma shaqeynayo soo wacdeer ha ka daalina soo wac waayo haddii halkan kaala hadla taadii baad waayeysaa mas-uul rag waxba ma maqlo macnihii waabay kanaabo whatsappku ma shaqeynayaa mas-uul hadda uu shaqeynayaa hadda uu fiicnaado sooma qadka kuma xadiidsanayna malena haday ku soo dhawow haddaad chance u heshay qofkii ugu horreeyey baa tahay magacaaga iyo waddankaad beerka u jiiftid ku dhowahay waa ninkii dee labadeen isku maanic isbinkooday waan garta waxa waaye yarkii daa'uud oo kasoo hadlaya jarmalka habeenkii naagina isiisaa maleynayaa daawud gabadhii miyaanad helin whatsappku miyaan lagugu soo dirin may gabadhta waa helay laakiin gabadha markii habeenkii u qaato 2 sano inay gaweyntaa ku qaatay markaa la hadlay 34 jirtaa 2 caruur ay leedahay jarmal ila joogta hadda maamada ani dhashaba heer karinay integeena 34 daawud adeero aniga waad cadibtay daawud ciraad iga soo saartay hello salaamu calaykum daawud mise jir baad gabadha ku qaadatay gabadha 25 habeenkii aan dhahaya waa maqlaysay markaan dhahay isbitaal ma ku dhalatay mise gate hosti ee xanaaqaysa marka waa dareemay inay xanaaqday dib aan kala hadlay waxay u dhahdaa aniga intaas jira 2 caruur aan leeyahay jarmalan kula joogaa inay soo dhaweysaan rabaa kulada de sidee ku soo dhaweynaya 4 iyo 30 iyo 23 isku heerba ma ahane war daawud adigu imisa jir baad tahay niyow daawud nin adeer naftii baad naga qaaday adeer adigu imisa jir baad ahayd aniga 23 inay qorantay 23 aniga soo taa aan jiraan ku dhahay de 23 jir haddaad tahay qof daacada bay ahayd maad carruurta la korsatood caanaha la cabtid ood gabadha guursatid hadda 4 iyo 30 Mustafa maxaa ku dhacday 4 iyo 30 hadda inteegaya waa 10 sano iga weynta naagtay 10 sano hadda inteegaya waa xilliga ugu macaan yihiin maxaa naagnaa keenay daawud war sheekh daawud
ha hadda wallahi ma doonayaa ku dhaanaag hal habeen 10 sano hal habeen adduunyada iga soo horeysa bal inaan isku qasbaaday dartaa isku qasbay habeenkii oo 2 sano aan ka weynahay ugu dhahdaa ha isqasbin afar iyo soddon inta qarnaysa hadaan ka badan ninka tabcaanka yalaad wardood hore miyaan soo guursan maad weli gabar baarag inta ku arkaya waa anigii hadda bilaabay waxaan rabtaa inaa dabaq iyo turto afdan inta qarnaysa hadaan ka sii badan waaba ka shikiiba 4 iyo 30 markay u dhaaf wardood Yurub imsadi baad soo gashay aniga ha ani Yurub waxa soo galay 2014 tii 2014 baad Yurub soo gashay kama indhan caalamka waad la socotaa in adigu waxaad u baahan tahay inaas nooci kalaanu malaynaya in warabadaane macnaha adigu maxaad u baahan tahay in hadii lagaaga soo horeeyo calafkeegi mar uu noqday oo kii labaad daawud noqotid oo caruur cad ilaahay ka siiyo miyaanad caanaha supermarketka la nuugay war waxa dib ma laha ilaahay ku dharshay 34 iyo 23 hadda qofka xatay 26 ha jirto oo 25 ha jirto oo 27 xatay dhowr iyo 30 ma ku dhac Mustafaade ma dhowr iyo 30 caafimaad qabta maskaxda qaadanaysa ma ahane waxa qofku waxa fiican moogta waxa inay maskaxda qaadanayso maskaxdaba kama daadagaysa 4 iyo 30 intee loo socdaa war gabadhu ma caafimaad qabtay maxaa dhacday gabadhu ma caafimaad qabtay maxaan ka garanay caafimaadkeeda aan waxay u raahday intaasaan jira laba caruurna waa leeyahay cunugu uu weyn jiro dhowr iyo 10 marka waxay u raahday sidaasaa jirta hadda waxaan dhahay marka hore maxaa meesha uga sheegayso waatan wada hadleena ogeyd daawud anu waxaan idinku sameeyay ma garanayo jarmalka tabcaan ku tahay daawud 23 jiraan weligii waxba arag baa tahay oo tabcaana bir rabadaan baa lagu jiraa gabadhi dhagaal ayd waa diiday Talyaaniga joogtay curyaan waa diiday tu caafimaad qabta waa diiday tu awlaad haysata waa diiday hadda maxaad u diyaartaa hadda Mustafa waxa ma ilaahay gabarti 4 iyo 30 maxaa uga soo carartay ma ilaahay 4 iyo 30 hadda waxa adi qaadaneen anaha isiin Mustafa maad kala qaadanaysa adigu war miyaad kala noolaatay hadda maxaa la noolaadaa wixii ay sheegaysa iyadoo 4 iyo 30 ay tahay wixii ay sheegaysa waxay ku leedahay in adduunyada waxa uu qaalisan inay ay dhigtaa rabaa wax walba ay suubiso 4 iyo 30 hadda romantic suubi warnaga waxba suubin suubi daawud waxaad u suubisaa anagu ma garanno wax la suubiyo macnaheedu suubisku muxuu yahay macnaheedu ma waxa walba ay qabo way ku tir waxa leedahay inanta meeshan ay degan tahay waa iidowda wax saasi ma jirto waxa leedahay hadda waa ayun in laga helo yaani sidii gabartii sidii u doona laheedo u sharfi lahayd inay ii shiriftido war waxaana waxaas had ha ii dambaysa horta imise waa sanadka waxay dhacdaa 4 iyo 30 hadda meeshiyaabo ka xanaaqda Soomaa 4 iyo 30 inta qarnaysa ka badanaysa waayo inanti 5 iyo 20 horta waxaan rabaa wax barnaamijka qof walba waxaan rabaa daacadnimo inuu laakiin qof walba iska hadla hadoo waa wax macquul galay gabarti waxay sheegtay waa ogad habeenkii 5 iyo 20 ay u dhacday marka adana waxay u dhacday 2 sano hadda waxa ma dhibaysay gabarta qaado war hay u soo celin marka waxaa sameeyay ninkan odaga sidaas ku dhaay bal war kale hagil war hay 4 iyo 30 10 sano ku darsatay war gabadhu intay ku jirtay soo jarmalka kulmay joogin gabarta wadanka waxay joogtaa caasimadda labaad inay joogtaa jaal asaasi u tii waa bir rabadaane war waa bir rabadaane daawud wadiga sanu tabcaanin weligii waxba guursanay miyaad waa bir rabadaane wax la wadaagto caruurta loo korisin yani ajar baa kugu jira waa tabarucaad hadda waxay leedahay ma garanaysaa anigu waxa diyaar uma iyo yani sidaan waa ahay laakiin diyaar uma ihi waa ku soo fikira waxa taan ku dhahay hadda adiga hadana diyaar ayno barnaamijka ciyaari kaftana u soo gashay waxa marka hore noogu sheegaysa war haddaba ku noqon balan la galno maxaa haddaba ku noqon ku oran lahayo suubiska iyo waxaad ka wada hadashanay waxa la suubinayo waxa la ismarmarinayo la marmarso oo macnaheedu waxaan ku oran lahaa anigu adeen kula taliyo gabadha ku noqo romantic bay rabtaa waxay rabtaa inaad jacayl cusub iyo nolol cusub hadda daacad ma ahan inanta daacad ma ahan ka kasbo waa laga kasbadaa waxa laga keensadaa sidee loo kasbanayo waxay ku leedahay mar waa la ii qabaa mar la ii ma qabo mar saaxiibkay meeshaan ila joogto hadduu gabartaas wax fiyo ma ahana mid kale yiraahdo Mustafa ku jir khadka saa ugu jir wana waan ku qancinaya habeen walba leefka waan ku qanciyaa sida ugu jir war sidaas qof baa ku jira aduna ninka noqon hello salaam alaykum
hallo walaal mana maqashaa reer sacuudi carabiyay noqotay whatsappku waa ka xidhan yahay odaygii sacuudiga haystay baa ka xidhay boqorkiyaa xiray boqor salmaan baa ka xidhay boqorkaa ka xidhay waa dareemaya gabdhaha dhibaata ku qabaan watisaabka dhinaca sacuudiya jiraan way nagu soo celcelinaysa laakiin whatsappkaa ka xidhay hallo salaamu calaykum walaal miyaad kor u hadashid walaal codkaaga ma maqallo aad baan kuu salaamaynaa ama nafis geli daa-uud baa khadka ku jiro jarmalka jooga walaal codkaaga ku dar isdhib si aad daa-uud u hanantid daa-uud ma rabtaa aad baan kuu salaamayna daa-uud nasiibkaaga anigu daa-uud nasiibkaaga in badan baan tijaabiyey gabadha hadda ma buuggii igu qorba buuggiyaa iska nasiibsanaya waar waxba kuguma qorayo daa-ud anu runtaan kuu sheegaya buuggii daa-ud meel walba adigaa soo taagan kuguma qorayo haye bal sidee yeelnahay wax ay anfacana meeshan barnaamijkan waa kala ahay waar joog waryaa hallo salaamu calaykum وعليكم السلام ku soo dhawow barnaamijka calafdoon u gargaar walaalkaaga dhibanaha waan ku dhawahay walaalkay seebtaadi maasha allah alxamdulilah walaasha iyo gabar soomaaliyeed waan ku soo dhaweynaynaa walaal magacaaga iyo da-daada iyo waddankaad beerka u jiiftay walaalkay magacaygu waa raxmo raxmo haye waxaan jiraa 20 sano raxmo 20 jir isku tumatay waddankaad beerka u jiiftaa kenya maasha allah raxmo hore ma usoo guursatay meel buuqaad ku jirtaa walaal jaanis baanu ku siinay si fiican noola hadal hallo inantaasi muddaawd way mashquulsan tahay qofkii labaad ay ku eegayna wuxuu noqday qof mashquulsan oo tabcaan ku keenaya dib male nasiibka way ugu soo aadi doonaa nafteeda waxaa fiicanba dad kale dhalinyarta kale inaan fursad siiyo way soo wacayaan waa dareemaya marka kolleyba waa kusoo wici doonaa markaa soo gasha barnaamijka mar un baa heli doona waxaas dib male war daawudow maad iga dhammaani war ma kala dhammaana caawa ma kala dhammaana inaad ilaah baan kugu dhaariyey hadda intay ku kala lamaan ani gabar afrika joogtaa ii sheegay yurubta joogta meel walba ha joogtee waxaan kula waa isku dhibaya waan kula hadlayaa walaal qaali meel buuqaad ku jirtaa nin baa xarbiyaya oo sakaraada waa bir rabadaan caadi noola hadal abo waa kula hadlayaa saad u aragtaa nin daa-uud la idhaho 23 jir oon hore weli u guursan oo caafimaad qaba oo beerka jarmalka u jiifa sidaad u aragtaa nin daa-uud la idhaha sheekh daa-uud oo 23 jir isku tuntay sidaad u aragtaa daa'uud oo 25 jir ah 23 war soo sidaa maaha 23 hadduu sideed u aragtaa walaalo hadduu daacad yahay dee inuu dee daacad uu yahayba uu calaacalaya uu cabanaya gabadh waxaad ii geysay buu igu leeyahay 30 jira adna 20 jir baa tahay raxmaad tahay waad isku soo baxaysaa hadduu daacad yahay welcome lambarkaagaan kaa reebaya lambarkaagaan soo siinaya walaal wax la wadaag insha allah برنامجك شرقرية وهالشكرية السلام عليكم وعرقو هرمادك شرقرية السلام عليكم السلام رمضان كريم رمضان كريم صاحب رمضان كريم رمضان لمده كسو دو برنامجك على فضل ايوه صاحب سيدنا برنامج كان والله الصعودة sidii wax nool u hadal daqiiqado dad kale ayna sugaya magacaaga da-daada iyo waddankaad beerka u jiiftay magacaygu waa magacaa da-dayduna waa 26
magacaaga waxaana beerka u jiifay Switzerland. magacaa Mukhtaar 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 meel maqlay. mukhtaar imse jir baa tahay 26 sidaa ugu jir qof kale khadka ku jira halo salaamu calaykum yuusuf waxaad ku jirtaa khadkii whatsappkii dumarkaad ku jirtaa ma yuusuf ba dumar maxaya waar kii dumarkaad dhex fadhidaa yuusuf waar kaaga kuma jeedo yuusuf anuu soomaalisa wax loo fahansiya whatsappkii dumarka oo dumarkuma markaa maxay ahaayeen dee kii dumarku ka soo hadlayeen cadcad waar taleefonkii meesha kugu qornaa baan soo wacay anigu waa kayga kaan kaala hadlaya mid naag maaha waar kaaga kuma jeedo 2 lambar baa yuusuf meesha ku qoran haye kii dumarka xanxabadaadii kaaga heli lahaa yuusuf waan kala raagnay rabadaan baa soo gashay naagtii weli kuumaan soo helin waa in adeer miyaadi qof ilaahay kaadh kule ahayn miyaan qofkaas sugayn waar yuusuf hana habaarin waa bir rabadaane whatsappka dumarka ka bax mise waan kugu jiraa keebaan soo waca markaa waaye wac ka kale wac haye wac niyow yaa ilaahay aqaana niyow helo asalaamu calaykum waar mas-uul ma ku jirta adigu ku jira si fiican baa u jira barnaamijka waan ka baxayaa dadkan madaxa igu xanuunaya adigu waddanka Switzerland baad beerka u jiiftaa waar inaad er Soomaalidu waxba lama fahansiin karayo yuusuf oo miidhan ba hadda soo baraarugayo talyaaniga kaa soo wacaya ya hawa maqlayina ka meesha kale ka soo garaacay yuusuf baa la yidhaa waa fasaxaystay adigu Switzerland baad ku nooshahay mukhtaar imse jir baa tahay 26 jir isku tunta gabadh baan ku siinayaa sabriina la yidhaa waxay waddanka ku nooshahay waxa weeyaan inan sabriina la yidhaa baan ku siinayaa alxasil almuraad lambarkeygaan ku siinayaa inanta wac la hadal la sheekayso waxay da-daas oo kale rabtaa iyo nin Switzerland jooga adaa chance u helay mukhtaar waxaan rajeynayaa inayna kaa soo caban halkee wajadu joogtaa Malaysia okay soo turu caadi haye ma caafimaad qabtaa 100% waa boodboodayaabanayo waa sax iyo soo qaba Soomaalidu waxba lama fahansiin karayo 2 lambar baa meesha ku dul qoran walaal 2 lambar iskaga ka fiirso halo salaamu calaykum salaam raxma kusoo dhawow barnaamijka calafdoon mas-uul waa maasanta inaad waa dhowey magacaaga iyo da-daada niyow magacay waxaa la Axmed Wagar baa Axmed Wagar wagaray ka waasacan Axmed Wagar haynaade imasa jir niyow waxaan niyow 20 baan ahay 20 jir xooga ka masaa waddankeed beerka u jiiftaa wallahi niyow beerka بريها بيركو مسح بيرك حليف با حنون با وقت قادم دبر كان سقى سعداي مكا شرملك هرم اوسو غورستي بسم الله دور شر با حقي qof halkee joogtaan beerka kaa soo saarnaa waxaan deertay hal weydiyo qofkan doonaya in la helaan rabaa waa la helayaa shuruudo bilaa shuruud inaad erow anigu hortay nin 3 reer baan soo maray waan garta imika dhabar ka u jiifaa waxba kama hayo 3 reer baad soo maray maxaad ka wadaa ma 3 dumaraad soo martay haddana barbarkaad u taallaa waa sidaa jarmalkana waad ku nooshahay waa sidaa caawun baad tabaysaa soo maha 3dii iyo nimcadii ilaahay ku siiyad garan weyde waxaa la yidhi
xusuus baa geel lagu xirgeeya xoorkii xagaaga laga dhameeyo maxaa yidhi xusuus baa geel lagu xirgeeya xusuus baa geel lagu xergeeyaa waan garta weli waxaa rabaa mid iyadana 3 xeer intay kasoo dumeen iminka tiictiicay soo taagan inaan mid kaafraad aan ku dhamaystiraysaa rabaa war naga daa Axmed habaarka niyo naga daa anuma wax 3 reer kasoo duween baan bixina wax waa rabadaan wax saad noola hadlaysaa inaad argacanay barnaamijka ka daa ciyaartaas maxaad u duminaysaa reeraha inaad romay in ortay anigu magaranaysaa hablaha yarar imika hablaha yarar yarta isfahmayno qof weyn baa isfahmayno qofku weyna waxaa raba qof gidaarada ka soo dhamaaday oo aad uga soo dhamaaday mid badhugu hartiin ma rabo dee adigu ma waxaad rabtaa aan ku siinay qof caruur haysata macnaheedu reer ka soo dumeen ma gabadh la soo furay baad rabtaa si fiican wax noogu sheeg yaa 3 jeer intii reer ka soo dumeen iminka ay rabta ka u dambeeyay inay ku caroodeegto sida ugu jir gabadha khadka ku jirta hello salaamu calaykum in hableenu ma hadli karaan baan sire walaal ma sooman tahay ma soo afurtay mana maqashaa sidaa u hadal walaal sidaa u hadal dad kale ayna sugaya walaal waddankaad beerka u jiiftid iyo magacaaga iyo daadaada aniga ayaan maxamed baladaha Soomaaliya joogaa ayaan maxamed ma sha Allah ayaan maxamed imse jir baa tahay 23 jir isku tumatay ayaan reer hore ma ka soo dumeen inaan baa raba gabadh reer ka soo dumeen subhanallah bay ku tiri wariya ma maqasho Axmed ما دلبنا ذيك ويا ما دلبن هذيك يجيب بارتي war adee warna waan ku salaamaya buugana xarisan kugu qoraya aniyo walaal adigu hore ma usoo guursatay inanta ma walaalo waxba ma adarag hadda doonaya walaalo daacad baa tahay war inanta walaal wax la wadaag balaayo iyo reera soo dumiya noo dirin in adeer imige wariyaha in adeero ma kaftan baan anigu ma kaftamayo waxaan ka hadlayaa waa nadkan ka hadlaya dee gabadh in dee kaftan in adeero barnaamij qiimalo barnaamij dad badan ay ku hodmeen marka waxaan aniguna wixii aan doonayay baa ka dhiibtay raygayga ma socdo ilaa kuma socdo bow dee walaal sideed u rabtaa qof ay wax ka soo dumeen markaanad wax ula wadaagtid niyo inaad ma xabaar qabaata maana ducaysnay in arme waan ducaysanahay 3 xaalad 3 daba haye waata koowaad waata koowaad waa qof way araga haye waata koowaad sida loo dhisana way taqaanaa sida loo dumiyana way taqaanaa haye waata saddexaad intii soo dumin karaysay soo dumisay iminka waa rasmigii bay taagan tahay way ka soo dhamaatay gidaarada waan gartay deegaanada ma qof loo dhiga jira Allah barakeeyay midaas haddaba buugga naxariistan kugu qoraya haddii aan weyno waad naga raalli haanaysaa buugga naxariistaad ilaa qiyaamaha ku xusnaanaysa ka naxariista haa ka naxariista iraan me kaasa iga badan wallahi billahi taala hadii mid naxariistaad ugu qoraysi wax nagu qoro waa nagu qor oo adiga waa nagu qor kugu qornay way inaad raad ku salaaminaa hello السلام عليكم السلام kusoo dhawow barnaamijka caraftoon walaal mana maqashaa walaal magacaaga da'daada iyo waddankaad beerka u jiiftid waxaana joogaa muqdisho caysha maasha allah maanta xamar baa meesha cararaysa caawa caysha imse jir baa tahay 20 jir 20 jir isku tumatay caysha hore ma usoo guursatay yaa hore usoo guursanay maad soo guursatay maad hore ma usoo guursatay macnihii hore nin ma ugu tagtay
guur ها ها imise carruuraad haysataa هذه لا يجو hal wiil ee nin halkee jooga baad rabtaa nin wanaagsan oo waxaan akhlaaq loo diinay meesha hore waxay sidee ugu jiro haddaba annaga dadka akhlaaqda la qaybine halow salaamu calaykum عليكم السلام عليكم mas-uul sameecadda dambaad ka hadlaysaa أربعة سنة حتى عادي كان قال يا برادر kusoo dhawow barnaamijka calafdoon waan ku soo dhawaay saaxib mustafa sharmal baan joogaa heegan baan ahay soo qaba aabba magacaaga magacayga axmed baa la yidhaha walaal axmed beerka u jifa jarmal meeqa jir may wallahi digtoona baan ku jiraa beerku ma jiise 21 jir 21 jir isku tuntay isku tuntay aad cayisha waxa weeyaan waa 20 jir iskaraacday xamar bay beerka u jiiftay hal cunug bay leedahay xamara ha dana arta xamar aakhira ba ka dhawey ma aseeka xamar maxaa weligeeda ma aragbe kama dhawa aakhiro ma dhawa kama dhawa wadna ruux iska dhaw mid sharmal joogta ama yurub joogta ma haysaa oo iyaduna beerka u jiifta may hadda haynamay soo wicin laakiin hadda waxaynu gacanta ku haynaa aynu ognahay inay caafimaad qabto cayisha may buuga naxariista qor cayisha waan ka xumay walaashay xamar mana aadin weligay mana u socdo walaalo iyadaa ku imanaysa cayishi maxay igu imaanaysaa cayisha markaa maxay kugu imaanaysaa halkaad joogtid waa okay hadda iyada imaanaysa cayisha maad u imanaysaa inan kan walaal maadaamadu mustaqbal doon tahay maxaa intee usoo maraa ma usoo biigaa waa dee waa runteede gacan qabashay baahantay wax ma ka caawinaysa iyadaa ku imanayse war ninaar taas sabta la iska gaaray gabadh jarmalka naagihiisa batay garoobadiisii garoobada jarmalka mid ku soo qabo Mustafa maxaad garoobta ku falay cayisho hel cunug haysato oo mar curatay mar curad baan ku haynaa inaad irkacdi annagana hana dilina idin dhays dilina macnaha wax ka hadla ragow ar Mustafa waa mid weyn inaad mid waxaad afka ii gelisay ilaah ma ku dhaatay arayda xirigaade maxay kugu samaysay war waxay u samaysay war mid imaan la lahayniyo war wax wada iibaanlo baad sheegtaan inaad halkan baada laydinkaga guri jiray wehalkeed war naago kale noqdeen naago oo kasiiba ku Austria jooga iska ilaali Austria Greece meel ma aqaan dee inaadan iibaan la-aanta maxaa meesha keenay meedinkaa bakaynayna hablaha ilan waxaa loo diraadaa waxa yara greemkooga iyo habeen dhan bay idiin sheekeynayaan habeenka anigu waan u sheekeynaya aniga waxba iga baxay isku xuma naga baxay maxay tahay hadday calafdoon qoftu tahay anigu diyaar baan ahay guur xalaala oo nolosheeda inta ka dhimana laakiin qowdii iyadoo joogin hadday biilku weydiisto adooma laba sheekaysano saddex habeen la jooga biilka hooyadiiba ma u diray inaad erseen wax wadaan dee biil maxay walaal idin weydiisay macnaha eeg laba kala saara waxa tahay qofka buugga naxariista ku xusan qofkii sideedaad baa tahay idhi gabadh iibaanlaadna siisay anigu hablaha kuma dhex jiro iibaankooga iyo iibaan qabkooga in waa hore laga qaaday iyo in hadda la maray ma garatay dahay barnaamijka waxaad ku dirtaa mataqaanaa dumarow haddaad guur xalaa haddaad hanti rabtaan America ragga jooga doonta haddaad rag rabtaan in dhisa oo micnaha aydan noloshiina dabanin u baahanina jarmal taga adigu ma adigoon meher shardi iyo meher dhuumasho iyo meher toona ku xidhan bay ku tiri adduunkan meher iyo waxaad ka hadlaata saddex habeen ma wada hadlaynaysa lacag weydiisay lacag maalinta ay ma qori ma xishoonaysid miya ma cabsanaysid miya ma qajilaysid miya see wax wada dee ma waxbaad u dirtay mise way baxsatay maalinkii igu dambaysay hadalkeeda maalinkii aad baan uga xumahay qof iibaan adiga Mustafa ha walaal waxaan ku yiri gabadh jarmal joogta ama Yurub joogta si buugan xariista igu qor lambarkaygu waka si macnaha yaan xaafada war sidaa ugu jiro adigu nin anigu dad iibaan qabaan qaybayaay haye ma 20 jirkaaga isku tuntay bay ku tiri lacag ka subxaanaka yaa cadiim 20 jir adoo iyadoo oo 20 jir baan tahay ugu tiri markaas lacag weydiiso waxaan ku yiri ma waxaan soo ka daraa ragnimadkayga lacag ma waalan tahay hatta naarta hadan arooso waxaan doonaa siinaya laakiin qof aad wali aroosin hadda hadii ku bodo
waan kaa qoray adeere nabur gardarra allaha kaaga dhigo axmed haye naadir haye barnaamijku waa daawanaya naagaa jarmalka soo gadaa fiirsanaya sheergaree barnaamijka haye baaba haye dhib bayna haysataa walaashay naga raalle haw adiguma ku jirtaa khadka walaalo nasiibkaa sidaa yidhi waxaan kugu soo xidi doonaa insha allah nin agagaarkaagaa jooga haddii buuqa naxariista kor iyo hoos kaaga xusan kuusoo helo qof kale oo dookaagaana waan kuusoo diraya aad baan kuu salaamay halo asalaamu calaykum halo waan ku maqlaa mas-uul kusoo dhawow barnaamijka calafdoon alxamis ka hor walaal aad baan kuu salaamaya haye waan ku salaamana xaaladaada ka waran alxamdulilah haye marka gabadh macaawa dee waan arka inta telefoonku badan yahe walaahi maxaa haysaa qofkii ugu hablaha badnaayan siiyey baad ka mid noqoto ilahay jaanis ku siiyey adigu wixii ku siiyey halkeed geysay mustafe qof kalaan ku wadaa nin macaawa maanta ma qof kale ad ii wadaa oo kale ho sidaa ugu jir asalaamu calaykum calaykum asalaam ramadaan kariim horta ramadaan kariim ayay waranati walaal noo soo gudbi magacaaga iyo da-daadii halkaad beerka u jiiftid maxamed keegi xasan baa leeha xasan halkaad beerka u jiiftaa waxaan u jiifaa beerka luxembourg ninkaan waan u jiifaa ninkan beer buu muddo badan u jiifay ninkan waanu ka soo gaadhnay adigu ma rabtao daacad mato ma caafimaad qabtaa ninkan wuu nala soo xidhiidhay hablo badan baan lambarradoodii siinay qaar ka weynaaday iyo qaar ka yaraaday iyo qaar ay isku lambar noqdeen hadda alxamdulilah xabadiisi u haystaa sidee ma u ogtahay mustafe war intaay siisay baa anu waa daayo lacag bay weydiisay saa ninkaa iga horreey u sheegay weyn ma garan haye markaas soomaalida lacag bay bukaan baydha anoo waxa kala wadin ma garan waaba iska daayaba caddaan baa iska doontay khalaas ninkii caddaan ma ku xidhna khalaas waar heedhaha yaa khiseed wax u wadaan hablihii ma adduun bay rabaan waa fahmi laanahay wallahi waa fahmi laanahay bawr baa wadaa bay tiri haddaad yarad wadna maxaa ka galay aakhira samaan weyaan waar waa aakhira sabaane laga yaaba taadii baan weli dhalanay adigu nasiibkaa beerka u jiifinta taadii soo dhalanayso waa daynabay bal wax weela anu caddaan baa iska doonnay hadday soonayna diideen allaha kuu barakeeya caddaan iyo akhtar waxaad doonatid ba adeere balka kale u dhiib wari adeer war mana maqlaysaa ya akhi hablo reer jabuutiyaanu idin haynaa oo daxiima oo faransiiska beerka u jiifa dee la hadla waa faransiiska iyo luuqadaha ilaahay quwadda iyo idiin siiyey baawarka kula hadla oo hablaha jacaylka ka samaysta hal habeen haddaad baybi tiraan lacag kuma weydiinaysa ya laba lambar baan idiin soo diri doonaa waa hablo jabuuti reer jabuutiya maxaan u malaynaya faransiiska inay dalxiis ku yimaadeen iyo inay baasaboor ku yimaadeen ma aqaano laakiin markaan idin siiyo sidii rag fiican ula hadla war xabadii garowe joogtaan u baanayn garowe xabadii garowe joogtay inaan kaalgacyo beerka u jiifa helay nin baraxadda jiifa waar labada hablood faransiiska joogaan idin siinaya imiga garowe hay celinine xabid online kuma jirto mustafe ya xabid online kuma jirto laga yaabaa war uma hayaade buuqa naxariista labada hablood baa ku xusan maadaama rag reer jabuutiya tihiin labada hablood baan idiin soo diraya barnaamijka markaan hadda ka baxo lambar dambe idiin soo diri maayo haddaad hablaha iibaanlii kusoo sheegtaan haddaad iibaanlii hablaha kusoo sheegtaan lambar dambe xaaraan buu idinka yahay dee maxaa iibaanliyada keenay idinku hablaha adduun baan leh diyaarad baan kaxeeya halkan laba sariirta wareegtaan ku hurda waxaa ugu sheekaynine haddaad miskiin tahay war miskiin baan hay waxba ma haysto beerkaan u jiifa runta u sheega hablaha nolosheeda masalaad ma tukado xamudka markii aan tukado waa barnabadaanta ay iga ciyaarin magrabbe ma sheegi karayo soo kaaga khasaarin waayahay in adeer hablaha runta u sheega
waar ma sheegi karayo wallahi billahi mar baad nolosheeda maanta soo ma garan oo salaad kaday ay ciyaarin ninka rabada ku sugaa cibaadada waayo hadeer aad baan idin salaamaya ay aadna ku salaamay wanaagsan itaqulla barnaamijka la sheer garayo itaqulla Soomaaliya itaqulla waxa marag madoonta oo la isku raacay hablaheeni inay adduunyo doon yihiin wallahi waa adduunyo doon America iyo Aasiya ninka joogeen Australia Brazil ninka sonkorta miisa ilaahay baa maalka siiyay markay ku soo wacaan marag ilaahay baad ka noqonaysaan waxa ku oran in Australia jooga kii Switzerland joogay ee muddada dhow soo galay ee muruqmaalka ee xamaalkiina waxay ku leeyihiin lacag bay ku xijeynayaan waxay oranayaan hello salaam alaykum hello si fiican walaal mana maqasho adigu walaal maya weli guur ma galin waa cusbaahay walaal magacaaga iyo da'daada iyo waddankaad beerka u jiiftid xasan cali xasan cali halkaad beerka u jiiftaa kismaayo Soomaaliya hayaa kismaayo xasan cali guur hore ma soo martay maya weligii ma baarkin bu meel ku yaalo wax yaalo ma anigu kuma naan weydin wax yaalo ka bax anigu meel yaalo iyo meel ku nabaya kuma weydin macnaha guur ma soo martay maya ma soo marin imise jir baa tahay 21 jir ma caafimaad qabtaa safiican gabadh halkee joogta baad rabtaa wallahi Soomaaliya ugu qabo Soomaaliya marka cadday gabadh joogta si aad u aragtaa maasha Allah sidaa ugu jir gabadh Soomaaliyeed ba khadka soo gashay hello salaamu calaykum kor u hadal calaykum asalaam waraxma ramadaan kariim walaal hablaha Soomaaliyeed codkiina kor u qaada walaal mana maqashaa adigu tabcaan halkaad ku tahay adigu dantaada ka hadal walaal dantaada anigu walaal waxaan doonayaa oday 100 jir ka odhe ma la helayaa 100 jir aad baan ku salaamayna adiga waa tabcaan hulan bay naga soo wacaysaa 100 jir bay u baahan tahay waxa laakiin kama jiraan 100 jir beerka u jiiftaa mas'uul buugan naxariistan kugu qoraya kismaayaan kuu soo dirayaa gabadha joogta kismaayo ma marka cadday marko iisoo dir nabarkeeda magaceeda barnaamijka markaan ka baxaan kuu soo dirayaa hay-aad baan kuu salaamay hello salaamu calaykum hello عليكم السلام ورحمة هي maaha kusoo dhawow barnaamijka calafdoon ma la socotaa barnaamijka daacad ma tahay waxaad noo soo wacday waayo si fiican u hadal mas-uul magacaaga da'daada iyo waddankaad beerka u jiiftay magacaygu waa maxamed waxaan joogaa hargeysa 21 jir maasha allah axmed 21 jir beerka u jiifa baxsanay hargeysa 22 ba ma dhaafayaan ragga Soomaalidu axmed guur hore ma soo martay maya ma soo marin ma caafimaad qabtaa caafimaadkeeda taan weeye gabadh halkee joogta baad rabtaa hargeysada baadii la helayo ma Soomaaliya hargeysa waxaan u malaynayaa dalabaadka way ku yar yihiin waxay u socdaan Australia Aasiya iyo America waxaan ku haynaa xamar
midun kusoo waabi baan kuri mid baan kugu waabinayaa lambarkana waan kaa qoray anaa kuu soo diraya hablaha iyaga sharafta iyo qiimaha iyo qadarinta mudan kolkaadna soo wacdaan walaalayaal u hadla see ragga u hadlayaan waxaad qarsataa oo ku qarsadaa haddaad bas daatood beerka u jiiftid ha cabsanin ha khajilin waxa fiican inaad wixii dantaadaa ka hadashid ama aad ka cabsatid ma aha wax munaasib ah war beerkaan inoo jiifaa kenyaan bestay ku ahay ma guursan waxba ma dhalin ama waan dhalay weli baa lay qabay hal inana baan hayaa soomaali nabi maxamedi firdows cali taani baa la idhaahday tiri buugga naxariista ku qoran tahay hal ilmaa iga shafeecay baa lagu diiday hal ilmaa ka noqday halo asalaamu calaykum halo caruurtu ilaahay baa bixiya macnaha waxay nagu tiri cudurdaar hal cudurdaar baan le war ha loo sheego ragga nin xor ah oo xalaala baan rabaa hal ilmaa iga noqday ilmaha ka shafeecadii bay kaga boodsan yihiin waa daacad lilaahiya waa mar bay curatay mar curan waa janis waa mar la arag waa laytil khadar buugga naxariista ku xusan tahay way ku daashay habeenkii markaanu eegayno magaceegiiyo saddexan inay cali taani baa nagaga soo baxaysa soo in laga faa'iidaysta maaha kaan u sheegaa dhowr lamber baan siiyey oo ilmee beri iga noqday kolkay ku tiraado way naxayaan walaal caadi noola hadal caadi walaal u hadal kusoo dhawow barnaamijka caraftoon hallo asalaamu calaykum hallo wacalaykum asalaam saaxib iwran kusoo dhawow barnaamijka caraftoon ku dhawaa baraada ramadaan kariim ramadaan kariim sidaa ugu jir hallo asalaamu calaykum gabar soomaaliyeed walaal caadi maad noola hadli caadi dhowr jeer waadna soo wacday meel buuqaad ku jirtaa walaal mana maqashaa ha walaal ku maqlaa gabadhaan la hadlaya mas-uul saa ugu jir walaal meel buuqaad ku jirtaa si fiican ma noo maqashaa af sawaaxili kuukuuya hablahan kuukuuyada la noolan waan ka yaabay soomaaliya wallahi aad baan uga yaabay hablahan kuukuuyada la nool af sawaaxili bay dabada ii qabanaysaa mas-uul ku soco magacaaga iyo da-daada libaax ayubes ina burburshe waa la dhaha mafahant facebooka kusoo galaa waxaanu ku noolahay waryaa joog anigu ina burbursho iyo inaad madaalo toona kuma weydin macnaha waxaad facebook kusoo gashid kumaan weydiina magacaagan ku weydiiyey ayub saaxib daacad matid adiga aad baan kuu salaamaynaa saaxib maxaa ahaan waay aad baan kuu salaamayna saaxib waxbaan kala hadlayaa magacaaga iyo da-daada baan leeyahay macnaha barnaamijku ciyaar maaha dad daacadaan isku xidhaya ina madaalo ina ma burburshe inaan halkaa mare naga raalleha walaalkayo hallo asalaamu calaykum calaykum salaam inadeer ha inadeer de qofta ma iisoo qortita ii sheegaysa inadeer maxaan banaa barnaamijkiiba ka baxayba kuleylkan iyo kaba kuleylkani waa maxay maya anu maa dhowr jeer baa saxaab kugu soo celceliyay ogeyno dhowr jeer baa tiri qofaa ku haya faransiiska joogta dee walaal maanaa barnaamijkiiba ka baxay haddaan magacaagii da-daadi kaa qoray gabadhu faransiiska inaad aalaf ku leedahay in kale miyaad ogtahay iyo inay adduunku weydiini inaad isugto soo ma qumana hayo okay sax sugaye war waxaan lacagna laguma siiya de annaga soomaaliya anuu adduunku ma qaato waxaan qaar baa moodaya in qaramada midoobeyna bayliso adduunku ma qaadana waxaan waxa weeyaan waa xasanaad soomaalida ba waxaa la idhi rag waaweyn baan waraystoy waxa laynagu yidhi ninka cawro u geeya
hadda eeg soomaaliya cawro ninka cawro ku geeya ee qaar ba hadduu tolo cawro caadi ugu geyni maaha sida ninka cawro u geeya macnihii waa ninka laba qof oo daacada mustaqbal doona lilaahiya iskugu keena guri ee ismehersada halka habeenka ajir xasanaada baa laga helaya marka anigu muhiimadeedu waxay tahay un cawro u geeyo si xor oo xalaalo ugu geey qaar baa dhow tolay hablaha iyo namada guryahaas ugu xarayn doono maaha ilaahay aniga qiyaamahayba soo fadhiisiyo soomaaliya waydiin furanya ninka cawro dari lahay ugu geynaya kii leef soo gelaya kii kale guri kale iskugu geynaya halo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله برادة يورنا على ذلك ور kusoo dhawow barnaamijka calaftoon ramadaan kariim رمضان الكريم برادة ودوا وركا كان عاصمتك كور magacaaga iyo da-daada iyo waddankaad beerka u jiifto ورنيو وأنا سعيد محمد أوجو يوغندا hanad siciid axmed hanad imse jir baa tahay أنا سعيد أحمد يوغندا uganda hanad imse jir baa tahay دحلات سجر 23 jir hore ma usoo guursatay ما ولي وحما سو أركين kambaala habluhu way idinka cabanayaan macnihii raggaasi daacad maaha bay leeyihiin raggu daacad uu ku jiraan dad daacadeen uu ku jiraan mid maahane ma caafimaad qabtaa nacam sidaa ugu jir gabar soomaaliyeed baa khadka ku jirta walaal ciyaarta maad naga daysid gabar soomaaliyeed hallo walaal ma balowg baan ku saarnaa mise ciyaarta waad naga daynaysaa af sawaaxil ha ku hadlin af soomaali ku hadal walaal ma sawaaxil ma nin sawaaxiliya kuuyaa ku dhalay kuwaate hablaynu abti waryaha inanaynu abtuunahay baa meesha ku jirto nin kuuyii dhalay kelmad af soomaaliya ma soo rogayso warya may maqashaa hanad mustafa waa ku maqlaa dee waa tan inaad ergacday wayna mashquulisay kelmad af soomaaliya ma garanayso nin kuuyaa baa dhalay waa inan abti loo yahay ilaahay ma ku baray luuqada sawaaxiliga bal ka dhacsiyo la hadal bal qofkan in adeer la hadal waan ku jeclahay ku dhe waxaan ujeedaa barnaamij waar way ku maqlaysaa adigu la hadal af sawaaxiliga haddaad taqaanid in adeer waa tan wayna mashquulisay walaal waa bal la hadal in adeer Hello, sister. Lieza. Salama. Ongea. Oi, Cobb. waryaa joog waryaa waxay salaama iyo waxaad weydiinaysaa nin naga tago waxba ma garanaysid niyawe anaguba intan ilaahay waanu naqaanaay waxaad weydiinaysaa inanta waryaa ilaahay aqaano af sawaaxiliga ilaahay baa warniw aad baan kuu salaamaya qofkan inaad qof uga bax naga qanciya warni hadlay wallahi waxaan ula hadlaya ber horaan balowglaa waa inan la dhalay baan islaahay oo abtiba waa inan soomaaliyeed sawaaxiliba inan kuuyaa dhalay adu ka bax khadka hallo af soomaali ma taqaanaa waan garanayaa maxaa hadaad garanaysid aad noolagula hadlaysa afkan readeerada daha isagaa igula hadla kowda hore soodiga caawo dhan unagu yaada nagu haya annaga ayaay numbarkaa kaa qaldanaa malena walaalo ya oo taab jartay lambarkaa kaa qaldan kulaha
برنامج الشرقرية أصحاب شرفت الآد بعد ما تنتهين دنيا تعلمني إذا ميركز تشوفتان هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كسر دو برنامجك. magacaaga daadaada iyo waddankaad beerka u jiiftay magacayga waa raagi aadan waxaan joogaa nairobi 22 jir qofkii u dambeeyey baa tahay barnaamijka imise jir 27 jir baa tahay 27 jir aan hore usoo guursan guur hore ma soo martay qof halkee joogtaan kugu soo xidhnaa nairobi kenya buugga naxariistan hablo ku xusan baan kaaga eegayaa lambarkaan kaa reebaya saa ugu jir insha allah aad baan kuu salaamaya waa realityha laga hadla soomaaliya xaqiiqada dhabtaa ka hadla 10 qof ugu yaraan ilaa meelaha 8 qof oo imaga isku dooq noqday baan buugga naxariista ku qoray waan isa siinaya markaan isa siiyo ay wada hadlaan qaar ba habeen dambe soo odhanaya waad ogtihiin gabadh iimaanlaadna siisay qofku iibaanka ilaahay dadka kama qaado macnaha ummaddu waa ummad muslimiin oo iibaan qabta hadhow tolay soo caban doonaan hablaha iyaga qiimaha iyo qadarinta mudan sharafta iyo karaamada mudan inaan nambarkii markaan ku siino kugu darno annaguna ajar ilan cawraanu cawro u geynay ajar baanu rabnaa soo ma lacag iyo adduun ha weydiinina lacagta iyo adduunkana waa la helaa waana la waayaa lacag waxba ma tarto maal waxba ma sheego aad baan idin salaamayaa barnaamijku waa gabagabo meel kastoo joogtaan dunida dacladeeda 3 qof 2 qof baan soo qaban doonaa oo fikirkooga sidii awalba barnaamijka ka dhiibanaya macnaha qofkaan soo qabanaa horaha u qabto whatsappka waan ka yaranasanaynaa si aynu fikirka dadka iyo waxay ka aaminsan yihiin barnaamijka u ogaano faraha soo yara taagta qabtay hello meel madow baad ku jirtaa aad baan kuu salaamayna nin meel madow ku jira ka qaban mayno soona qaban mayno yaxya waan ku soo qabtay midmid baan idiin soo qabanayaa yara dulqaata meel madow haddaad ka soo hadashid wada hadli mayno brother ka soo bax meesha madow aad baan kuu salaamaya rabadaan kariim والله هنا مقصب معناه كسب ماشي مدو مسؤول اديكو راليه اوكي وين هذا warwaanu ka baxnay inaad irmacani waxaan ku nidhi meesha madow ka baxay idinku waa leyrka sideenaas wallahi ninka waan garanaya war ugaas may garanaysaa aniga waxba adeer gacali ummadda ilaahay barakeeyay baa tahay sidaad u aragtaa barnaamijka barnaamijku wallahi barnaamij maxamed wadan ka u dhig waan gartay marka aniyo how iska bulan hayabtu waxaan rabnay afar baan wallahi saw yaacay ku
maxaa tihiin afar maxayaacaysa ها والله أفر واحد ناي بركيسن كودي haye مركا أدو كو قارباس كسمريون دعاء نايم كواحد هلا كرتول لبردو النص adeer whatsappka waa kuu furnaa whatsappkaad soo wici doontaa barnaamijka waad kasoo qayb geli doontaa lambar halkan kaa siin maayo ragul kulul oo jacaylka wax ka yaqaan ma haysa oo romantic oo sigis baag yale sida la iska soo dalbanaya war raggaas libax والله يا waxaan ku ragay warag caalamiite alle qaba kowdhi rag calool leh bari leh looma baahna hablaha Yurub jooga waxay u badan yihiin war abti maaha wallahi ragan waa wada darabadaan taa caataysan ku dhawnayo garhka dhulka jiidanaya kowdhi waan dareemaya wadanka joogtaan waxaanu joognaa Jarmal nin Jarmal joogo digaagad iyo lacag iyo fadhi iyo tireer isku helay maxaad ka filaysaa waa runtii waa tabcaan farxiya baasa way idin maqlaysaa faraanka forbi besteed ku tahay warun wani sadkeen bay daabli ka dhamaan waan kowdhi waan gartay maxaa ahaydaan markaa waxaanu sameynaa niyahow iminka whatsapp lambarka whatsappka noo soo qor waa kam ciwaanka ku qoran aad baan idin salaamaya ها هل بحي برنامج كان حقا كسي ودني ومحايد أنا هدي أن قبضها أصلا هلني ومتقنا مقعد إيش مقعد كانوا بحني ويل كعورة كاي دلولية aad baan idin salaamaya waqtiga soo gaabiyo walaal waqti baa nagu socda macnaha qofkaan soo qabta hadallada ha soo gaabiyo anuu halkan habla idinkuma hayo macnihii habla idinma siinayo ninkaan soo qabta afar cadcad baanu nahay afar cirka bardu leegtaanu nahay macnaha ka bax sideed u aragtaa barnaamijkan qof axmed waan ku soo qabtay khadku waa kaa daciif warsame waan ku soo qabtay si horaa u qabo mas-uul warsame maxamed هلا والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان الكريم. رمضان لمدا إن ورسمي هالكات بارك وشيفتا. ده مش جيبوتي بارك وشيفاين هذا. إن جيبوتي ما شاء الله. إن مجود كيبا. إيران وضش سرع. waa guudkii waa runtaa maad garatay jabuuti la iskuma guursado waa maxay rintafuu un baa la baxaa baa la yidhi jimcaha waa waxaas yaa ku yidhi inaad waa kuwan hablahi soo cabanaya buuggii naxariista waa kun ku wada qoran waa hablaha waa la wada aad baad u mahadsantahay barnaamijka saad u aragtaa والله برنامج wanaagsan oo fiican ma garanaysaa in adeer صح in adeer halkiis waa inaad ku wadi ma jeclaan laha halkiis inaad ku wadi ma jeclaan laha oo dadka wada xiriiritaan oo wixii gurdoon ay wixii kalaba la isku wada keeno si wanaagsan la isku wada dhiga oo wixii jecel iyo wixii kalaba de la isku wada keenaa ka wanaagsan jecelkana waad garanaysaa halkiis waan dareemaya yar ma lama dhayarsado waan dareemaya dad gaar ahaan ilaahay ku siiyo Djibouti baad beerka u jiiftaa Djibouti ay aniga aan u jeedaa afar dumar baan leeyahay u jeedid ka waram deenaada war afar wax dumar kuleena ma Djibouti waada Djibouti afar dumar kule Allah ku barakeeyo والسلام عليكم مصطفى. دكتورة أيان السلام عليكم. وعليكم السلام مصطفى في عتا ولا والله ولا الحمد لله رمضان كريم وصو أورير متي. والله رمضان مبارك ما شاء الله. ولا العلفتون بات هاي بيركادو تشيفتا بستا بات هاي. واتساب كيجا أنت تسوي عديد ورمضان مد إيد ميلها كوجو حنا يوم حدو صوت نوجا صوت ونويدي. ممكن حريصة نقول بسمي هلو أيان هلو
ayaan dambeysay khadka ka xumaaday aad baan idin salaaminaa asxaabta sharafta leh gudaha iyo dibad meesha joogtaanba waxaan idin leenahay laga hadlo rabadaantu haylayin wacnaato saamaxnaakum wixiina kala gaadhay waa rabadaan hadalka faraha badan leh bilaa macnigaana ma wanaagsana aad baan idin salaameynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu